السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برتقات هاتن إغلا سعوتان ويوتيوب كانال كيغا ديني استوديو سيداد هوري إيغا براتينبو waxaan kanaalkan inta badan ugu talagalay waan soo bandhiga oo ku soo bandhiga casharo ku saabsan dhanka information technology si kala hadii aan u jilciyo inta badan casharo ku saabsan Android device-ka ama mobilada sidoo kale computer-ka iyo application-adiisa inta badan ayaan soo bandhiga haatan waxaan doonayaa inaan idin soo bandhigo cashar aad iyo aad u fudud ku saabsan Photoshop 2018 cashirkan wuxuu ku saabsan yahay Photoshop 2018 waana sida qaabka ugu sahlan oo sawir background ugu bedeli karto waa feature cusub oo lagu soo daray Photoshop 2018 dabcan Photoshop-yada kale ma lahan feature-kan subject alla waxa tagaysaa tools kadibna subject alla leedahay sawirka meesha saaran background-kiisa ayaad qaadaysaa marka tan aniga waxaan isla arki doonaa iyadoo waqti yar ay qaadan doonto qaabka loo sameeyo sidoo kale hadii cashirkan Photoshop-ka ah ma noqon doono cashirkii ugu horeeyay uguna dambeeyay inkastoo culays fara badan iska jiraan anigana waxaan jeclahay hadii jeer inaan dadaalkayga si laabo si aan u sii wado hooshii Photoshop-ka kanaalkayga إذا كان إن شاء الله قف كستو رجينا إنه للصعود عشر كان سوا في الصومالي ما فرين مين ما يسلف عن الصومالي عن الصومالي عشر كصومالي فهم ككل صومالي أنا أول الصومالي مركا اسكت دايما مركينا سبسكرايب بس هذا وصعته عشر عن صوب نقول يوتيوب كا كدبنا جنبلك أريحه أنا هو دمك كأنا تسع ملاس مجرته لسه شن ساعة الله بس وقت قاعد عبيريس إمتى بدن ملاس يقفل عشر إن الصوت عن نوشمان ورن سبر ayaan soo dooranayna file open double click inta kadib waxa la leeyahay select subject isla markaa application-ka sawirka ay selection kugu sameynaya inta kadibna waxa leenahay edit si aan u koobiyay markaa sawirka waa in aan loo ka qaadno waxa leenahay double click edit copy merge new layer color soo dooro okay brush tool paint Ctrl D click edit past it's ready waxaan u baadhim inta yarna waxa u isticmaalaysaa erase tool this is the erase tool kana u isticmaalaysaa asxaabtu muhiimad ugu weyn waxay ahayd in aan isla ogaano feature-ka cusub ee Photoshop 2018 lagu soo kordhiyay cashirkan intaas ayuu ku saabsanaa cashirkan iyo cashir kale oo ku saabsan Photoshop inta aan ku wada kulmi doono waxaan idinkaga tagay oo idin leeyahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh